shacabweynaha ku dhaqan magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer maanta la hadlayay wakiil wareedka telefishinka caalamiga Soomaaliya News TV ee magaalada Burco ayaa ka hadlay waxqabadyadii xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ka geysatay dalkan Soomaaliland muddadii 7 sano ah ee talada dalka haysay shacabweynaha reer Burco ayaa maanta dhamaantood ka marxaati kacay in xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ka geysatay waxqabadyo la taaban karo shacabweynaha ku dhaqan magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ayaa dhamaantood bay iftiimiyay in waxqabadyo la taaban karo ka hirgeliyay xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ee dhamaatay muddo xileedkeedu inay waxqabadyo la taaban karo ka geysatay dalkan Soomaaliland oo kale shacabweynaha ku dhaqan magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ayaa iftiimiyay waxqabadyo la taaban karo aan geysanin saddexdii xukuumadda ka horeeyay xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo sidoo kale shacabweynaha reer Burco ayaa dhamaantood la dardaarmay xukuumadda cusub ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in markaana kula dardaarmay inuu ka sii ambaqaado bartii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo gaarsiiyay sidoo kale shacabweynaha reer Burco ayaa madaxweyne Muuse Biixi ku adkeeyay in wax ka qabto sixir bararka afayay dalkan Soomaaliland ee sugootinta madaxweynaheenii hore Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxaan ka aaminsanahay in lagu xasuusan doono saddex xaaladood Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa madaxweyne sharaf iyo qiimo weyn ku leh ummadda reer Soomaaliland marka koobaad wuxuu ahaa madaxweynihii wuxuu ahaa gudoomiyihii SNM ee ugu muddada dheeraa ee ugu muddakarsanaa musharaxii intuu soo tartamay 80ka cod ee ka shushubashada ah ee lagaga shubtay kaga tagay buu ahaa waa midda saddexaad ee wuxuu ahaa ninkii isagoo oo tartami karaya oo shacbigiisii iyo xukuumaddiisii iyo xisbigiisii ay dhisan yihiin wareejiyay musharaxnimadiisii saaxiibkii Muuse Biixi ku wareejiyay ka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay joogto aad iyo aad baan idinku hambalyeeynaya doorashadii wanaagsaneyd ee sida wacan u dhacday ee ka dhacday wadanka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan hawlwadeenadii ka shaqeynayay doorashada ama ha noqoto gudida doorashooyinka ama ha noqoto shacabweynaha reer Soomaaliland aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa marka labaad waxaan u mahadnaqayaa oo aad iyo aad u soo dhaweynayaa madaxweynaha iyaga xilku ka dhamaaday maxaan idhaahdaaye qaaliga ah maxaan idhaahdaaye aan oran karo lama arag madaxweyne la mid ah qaaradan Afrika waxaan oran karaa madaxweynaha iyaga Maxamed Axmed Maxamuud Silaanyo inaan madaxweyne la mid yahay aanu qaaradan Afrika ka dhalan ayaan qaban karaa Nelson Mandela iyaga labaad ayuu noqonayaa madaxweynaha xilku ka sii dhamaanaya waa madaxweyne mudan sharaf waa madaxweyne wixii aan u igmanay iyo wax kale oo dheeraadaba qabtay waa madaxweyne magac weyn naga tagaya marka madaxweyne wixii aan ku igmanay iyo wax ka sii siyaadana waad noo qabatay ma ilaawi doono madaxweynahan maanta xilku ka dhamaanayo in badan taariikhda iyadana baal dahaba ayuu madaxweynahaasi ka galaya madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo runtii waxa haayeen xasuusnaa 2012 miisaaniyadda halkay marisay halkii laga soo qaaday weyn horumarka la gaarsiin weyn kaabayaasha dhaqaalaha waxbarashada macallimiinta oo gurnooyinka loo sameeyay darajooyinkii oo ciidamada qaranka la siiyay wadooyinka kaabayaasha dhaqaalaha sidoo kale miisaaniyadda oo aan ogaan halka la gaarsiiyay iyadoo laga soo qaaday xagga hoose waxaan xasuusnaa maalintii madaxweynaha wadanka Silaanyo wadanka qabsaday qasnada dawladda way marnay maanta waxa la gaarsiiyay qasnada dawladda halka marayso miisaaniyadda 270 milyan halka marayso waan ognahay ardayda gobolka Togdheer waxbarashadoodu macallimiinta gurooyinka la siiyay macalinku mushaar ma qaadan jirin waan ogeen xagga gobolka Togdheer waxa laga qabtay in lacagtii laga bedelay 2012 in goboladii kor loo qaaday in wadooyinkii la sameeyay madaxweynaha cusubna waxaan u rajaynaynaa horumar hambalyo u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo xaqiiqada dhabta ah sida aynu wada ognahay muddadii xilka uu hayay sameeyay waxyaabo badan oo ku dayasho mudan waxyaabo badan oo dadka uu tusoo horseeday in wax la qabsan karo wax la abuuri karo wax lagu dhiirin karo wax fara badan inoo horseeday awalan wadada ceerigaabo oo dawlad ku dhacda ama ku dhiirata aan horeyna loo arag oo isagu ku dhiiraday lacagtii qarbashtahayd uu inaga bedelay darajooyinkii ciidamada waxqabad aad iyo aad la soo koobi karahayn qabsoomida doorashooyinka uu hirgeliyay iyo sida wanaagsan nabadgelyada leh waxa weeye kalsoonida leh amniga leh shakhsi waliba halkuu rabo nabadgelyo iyo amni uu marayo ina tusay
madaxweynaha ayaa aad iyo aad u mahadsan yahay iyo ka hadlaya sarifka lacagaha aadka noogu kacay dadkayga xoogsatada ee shilinka Soomaaliland xoogsada aadka noogu kacay ayaan ka hadlaya ila bixi waxa kala dardaarmaya bal inuu shilinka hoos nooga dejiyo dadkayga xoogsatada waxqabadka madaxweynaha waxa leeyahay waxqabadka madaxweynuhu wuu wanaagsanaa wadadii ceeriga abana kulli xoogaaba harsan oo isaga in la dhameystiro baan jecel madaxweynaha cusub ee dhameystiro madaxweynihii horena meel wanaagsan ayuu kaga tagay waanu hambalyeynaa dhammaan waxaanu leenahay dadka reer Soomaaliland soo dhaweeyay dawladda cusub ee hadda idin dhalan isku soo wada duuba magaaladani Bur ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ahayd magaaladii ku hirdamayeen asxaabta siyaasadda qaranku iyadoona shacabka reer Burco ay dhamaantood baahayeen kuwa u helan in isbedel ka dhaco dalka Soomaaliland Ahmed Jaamacadan Ahmed Digiro muqbaaya telefishinka caalamiga Soomaaliland TV magaalada Bur ee xarunta gobolka Togdheer